jaamacadda Hormuud oo ka jawaabaysa mas'uuliyaddeeda bulshada waxa ay 10kii sano ee u dambeeyay sanad waliba siisaa deeq waxbarasho 10ka arday ee kaalmaha ugu horeysa ka gala imtixaanka aqbalaadda jaamacadda. Ardayda ku guuleysata deeqdan waxay helaan fursad ay ku kala doortaan dhammaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda iyagoo waxbarashadooda ku dhameysta si buuxda oo bilaash ah. deeqdan waxbarasho waxay iga saartay culeysyo dhaqaale waxayna ii suurtagelisay inaan si dhammaystiran diiradda u saaro waxbarashadeeda iyo kor u qaadida xirfadahayga. Waxaan uga mahadcelinayaa jaamacadda Hormuud maamulkeeda iyo macallimiinteedaba garab istaagay joogtada ahaa muddada 4 sano ah haddii ahaato xaqaha waxbarid iyo tababarid iyo dhiirigelin iyo nooc kasta oo ardayga kor loogu qaadayo. waxaan aaminsanahay fursaddan in ay tahay mid si dhab ah u bedeli karta mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed. waxaan kula talinayaa ardayda Soomaaliyeed ee aan weli jaamacadaha ku biirin inay ka faa'iideystaan fursaddan dahabiga ah. jaamacadda Hormuud ayadoo ka duuleyso mas'uuliyadda ka saaran bulshada Soomaaliyeed waxay samaysaa fursado deeq waxbarasho ay ugu talagashay dhammaan ardayda Soomaaliyeed. fursadda ugu koowaad waa imtixaan la galo oo imtixaan admission ah isla markaana si cadaalad ah oo furan loo qaado. imtixaankaasi 10ka ugu sareyso fursad deeq waxbarasho ayay heli doonaan insha Allah. jaamacadduna waxay sameynaysay fursaddaasi tan iyo intay jirto jaamacadda. intaa kadib fursadda labaadna waxaa waayay kulliyadaha jaamacadda ay ka kooban tahay dadka ardayda ugu sareyso ayadana deeq waxbarasho ayay siisaa. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideysan doonaan ardayda Soomaaliyeed ee sanadkani soo qalin jibin doonto. deeqdan waxbarasho waxay astaan u tahay sida ay jaamacadda Hormuud uga go'an tahay dhiirigelinta waxbarashada iyo abaalmarinta dadaalada ardayda kartida. may barnaamijyada ardayda tuban ka hor ka guuleysatay Ilaahay mahadiis farxad iyo way badareemay iyo reyn taas oo ah intii familkay iyo dadka qaraabada hay waalidiintii lacagta oo biifadeen jaamacadda oo kofar gareyta. runtii imtixaanka una galnay imtixaan oo dahfuran oo qof kasta iyo kartidiis iyo aqoontis ah yahayti 4 sano ku bacda mayba ku qalin jabiyeen kulliyadda dhaqaalaha gaar ahaan business administration sanadka 2028. isdiiwaangelinta sanad waxbarasheedka 2025 iyo 2026 waxay ka socotaa dhammaan xarumaha kala duwan ee jaamacadda. ku soo biir jaamacadda Hormuud oo dhis mustaqbalkaaga iyo aqoontaadaba.